maxkamadda cadaaladda adduunka waa hay-ad ama loo aasaasay in wadamadu wixii dacwad ah oo ka dhaxaysa ay ku kala garbaxaan. dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenyana hadda muddo 6 sanadood ah ayay qaadatay. 2 goor baa hore dib loo dhigay codsi ka yimid xagga Kenya. anaga doodeedu waxay ahayd in mar walba la maqlo cadaaladda la dhageysto. hadda waa markii saddexaad oo dib loo dhigo. anagu inkastoo doodeedu ahayd kuna adkaysanay maxkamadana qoraal rasmi ah 2 goorba u qornay, haddana go'aanka maxkamadda dhinacyadu waa ku qasban yihiin inay qaataan. waxay maxkamaddu waqtigan tixgelisay cudurkan dilaaga ah ee aafeeyay adduunka. mudane ra'iisul wasaare ku-xigeen, waxaa muuqata in mar walba dowladda Kenya ay doodaheeda ku qancinayso maxkamadda marka la eego sida wax u socdaan. marka dhinaciina maxaa ka qaldanaya kula tahay? doodeedu mar walba waa mid sharciga iyo statute-ka shuruucda caalamiga ah ku salaysan. 2 goor hore waliba markii September aanu tagnay wax yar ka hor Kenya waxay caydhisay looyaradeedii sababahay doontaba ha u caydhisay. marka in dhinacyada fursad la siiyo ayay maxkamadda ula muuqatay. go'aankii ay soo saartay maxkamaddu markaana wuxuu ahaa in mar dambe aan dib loo dhigitoonin June 8 ilaa 12 ay tahay marka u dambaysa ee la dhageysan doono dacwadda dhinacyada ee afeed. mar dambena aan dib loo dhigin sidii gudoomiyihii maxkamadda gabadha Judge Shu la yiraahdo oo China ah asalkeeda ay ka sheegtay goobtii. laakiin waxa dhacay cudurkan waqtiga qeyrul caadi ee force majeure dhacay, dunidii oo dhan kala xidhay, dal walba gaar u xidhay. maxkamadda qudheedii wax ku cusub maadaama maqal furan aanay hadda samayn karahaynin in ay nidaamkii dejiso maqalka iyo muuqaalka ahaa. maxkamaddu waqtigan ay go'aanka ku qaadatay cudurkaas dunidii kala wada xidhay awgii, anagu inkastoonu jeclayn kuna doodnay kuna adkaysanay in 8 June ilaa 12 June la maqlo oo maqal iyo muuqaal lagu maqlo. haddana ugu dambeyntii go'aanka maxkamadda waa ku qasbannahay, dhinacyaduna waa ku qasban yihiin inay ixtiraamaan una hoggaansamaan. laakiin ra'iisul wasaare ku-xigeen, markaad eegto hawshaani waqtiga ay qaadatay iyo marxaladaha ay soo martay iyo hadda halka ay marayso, miyaan loo qaadan karin in doodihiinnu ay jilicsanaayeen? maya, marnaba kama jirin. doodeedu sharcigay ku salaysnayd. looyaro waaweyn oo caalamiya baa nagala shaqeeya. ilaa hadda waxaad og tahay markii ugu horreysay Kenya inay durtay awoodda maxkamaddu kuma dhageysan karto kiiskan oo ay tiri maxkamaddu ikhtisaas uma leh. maxkamaddu taa waa diiday, waxaana qaadatay go'aankii dowladda Soomaaliya ee ahaa maxkamaddu waa hay'adda u dhaxaysa cadaaladda adduunka ay tahay in ay dacwaddan dhageysato. marka maxkamaddu go'aan bay soo saartay xukun tafatiran oo faahfaahsan oo ballaaran oo ay leedahay waan dhageysanaynaa. marka taa qudheeduba waxa weeye guulihii ku salaysnaa doodda. taasaa ka weyn maalmo dib ugu dhig looyaraan qaadanaya. meesha ay taallo dooda weyni waxa weeye gunaanadka dacwadda iyo maqalka doodaha afeed ee ugu dambeeya. wixii dokumenti ahaa horaa loo gudbiyey inay maxkamaddu dhageysato. June bay ku eekayd. cudurkan ayaa yimid. maadaama hadda muddaxileedka dowladda aad ka tirsan tahay uu ku sii socdo waqtigii dhammaadka, isla markaana dhowr jeer dib loo dhigay arrintan, miyaanay u muuqan inaad ku guuldaraysateen kamiro dhalinta ee kiiskan? kamiro dhalintu waxay ku xidhan tahay dhageysiga dhinacyada iyo maxkamadda go'aanka ka dambaysta ah ee ay dhageysato, go'aan ka soo saarto, xukunna ka soo saarto. aanu aaminsannahay kuna hanweynahay in doodeedu sharciyad ku salaysan tahay. xagga muddaxileedka haddii dib dowladda xukuumadda nabad iyo nolol usoo noqoto dowladdu, iyo haddii muwaadin Soomaaliyeed iyo mas-uul Soomaaliyeed kala yimaadaba, dacwaddani waxay u taallaa qaranka Soomaaliyeed iyo dalka Kenya oo aynu isku hayno. marka dalku ma lumayo, qaranku ma lumayo, ummadda Soomaaliyeedna ma dhammaanaysa. halganka dhulka Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed lagu soo dhicinayo oo muranku inagala dhaxeeyo dalka Kenya waa mid socon doona ilaahow uusan waaga waraaba cunin. March 2021 ninkii nool waxba inagama xigaan, waqtiguna waa ordaya. mas-uulkii Soomaaliyeed ee kasta xilligaa jooga iyo annaga qudhayada waa diyaar baan u nahay inaan sii wadno. codsigan dowladda Kenya ee dib loogu dhigay doodii idinkala dhaxaysay wax saamayn ah ma ku yeelanayaa xiriirka idinkala dhaxeeya ee Kenya? maya, kuma yeelanayo. xiriirkii diblomaasiyadeed iyo jaarnimo iyo isdhexgalka dhaqaale iyo bulsho